Elon Musk iyo teamkiisa waxay ka shaqeynayaan in 2 sano iyo bar oo kaliya aad ku barato 7,100 luqadood ee caalamka ka jira waliba si fasiix ah aad ugu hadasho dhamaantood si aad u barato xirfad ama kuliyad gaar ahna uma baahan doontid inaad aado iskuul ee kaliya waxa kuugu filan inaad maskaxdaada ku koobiyeysato casharada taa waxa ka sii daran inaad kolkii aad u xiisto waayihii hore iyo wada sheekaysigii idin dhexmara adiga iyo aabaha ama awowga geeriyoodo 15 sano ka hor aad dib u daalacan karto gali kartana xusuuso aad u dheer shaygan yar ee loo bixiyay telepathy waxa uu leeyahay cajaa'ib badan waxaana furi doonaa albaabo badan oo muhiim u ah nolosheena haddaba si aan si wada jir ugu ogaano albaabada uu furi doono ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta Neuralink waa shirkad si hoos u aasaasay Elon Musk 2016 se waxa uu iclaamiyay shirkadani 2017 bishii Maars isagoona meel isugu keenay 90 qofood ee ugu aqoonta badan cilmiga neerfaha iyo kombiyuutarka si ay u soo saaraan qalab isku xiro maskaxda aadanaha iyo kombiyuutarada 3 sano oo ay wada shaqeynayeen aqoon-yahanadan ayaa 16 July 2019 waxa ay soo bandhigeen presentation aad u cajaa'ib badan iyagoo shaaciyay in la awoodo in la isku xiro maskaxda aadanaha iyo aaladaha kombiyuutarka dabcan kombiyuutarka kolkaynu isticmaalayno maskaxdeena waynu isticmaalnaa oo maskaxda amarka ay soo dayso waxa fuliyo gacmaheena inagoo mouse ama keyboard adeegsanayno teamkan waxay ka shaqeynayeen muddada 3 sano ah sidii si toos ah la isugu xiri lahaa maskaxda iyo kombiyuutarka iyadoo la xakameynayo waqtigii iyo tamartii ku bixileed in fariin maskaxda laga soo qaaday ay garbaha deedna gacmaha ilaa faraha ay isku soo marto kadibna aynu garaacno xaraf keyboardka ku yaalo si aynu wax u qorno oo teamkan waxa ay taagan yihiin waqti iyo tamar ayaa halka ku dhumayo ee waa inuu qofka ku fikiraa oo kaliya wax uu qorayo deedna intii aan fariintii gacmaha la soo gaarsiinin ayuu qorayaa wixii uu rabay dhab ahaantii ma ahan kolkii ugu horeysay ee lagu fikiray in aadanaha lagu talaalo maskaxdiisa memory yar oo haddii aad xasuusataan filimkii Matrix ee la soo saaray 1999 atooraha waxa maskaxdiisa la gelinayay jibis yar si ay u siyaado awoodiisa uuna ula dagaalamo robotyadii aadanaha soo weerarayay sidoo kale waxaa jira taxana buugaag ah ee uu qoray Scottish ah lana dhaho Linus Bankis waana buugaag qiyaaliseed uu qoraagan qorayay intii u dhaxaysay 1984 ilaa 2012 waxayna ka hadlayaan buugaagtani gaar ahaan taxanaha Culture Series in aadanuhu ku noolaado meerayaasha iyo xidigaha dhexdooda iyo in aadanaha lagu hormariyo makiinooyin macmal ah waana halka uu fikirka iyo dhiirigelinta uu ka qaato Elon Musk oo waxa uu ku hanweyn yahay in qiyaaliseedkaasi uu ka dhigo mid dhab ah 30 bishii koowaad 2024 saacadu kolkay ay 7:37 daqiiqo Elon Musk isagoo dadka ogeysiinayay isbedelka mustaqbalka ku yimid waxa uu bartiisa X ku soo qoray shalay qofkii ugu horeeyay ayaa lagu talaalay Neuralink si wanaagsan ayuuna u soo kabanayaa natiijooyinka hordhaca ahna waxay muujinayaan in si guul ah loogu ogaanayo hirarka dhaqdhaqaaqa maskaxda taasoo ka dhigan bilow dhiirigelin leh Elon Musk waxa uu Neuralinkiga koowaad u bixiyay telepathy oo macnaha noqonaya in dadka maskaxaan ay isku xiriiraan iyagoona isticmaalayeen aaladaha la isku xiriiro sida mobilada iyo kombiyuutarada kol Elon Musk la wareysanaya ayaa la weydiiyay ujeedada dhabta ah ee ka dambaysa mashruuca Neuralink waxa uu ku jawaabay ujeedku waa inaan jibis ama bir yar aan ku xirno maskaxda aadanaha si loo maamulo qofka Firstly, can you explain what Neuralink is and what the goal of it is? We put a chip in your brain to control your mind. Yeah. Okay. All right. Sidadku si aynan u argagixin waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in isaga iyo teamkiisaba maskaxda aadanaha danab gudbiyaal ku xirayaan si qofka xusuustiisa iyo garaadkiisa loo hormariyo waxaana danab gudbiyaashan loo yaqaanaa cybernetic imbalances waana ujeedada dhabta ah ee shirkadda Neuralink shirkaddani waxay sharaxday sidii jibiska loo gelinayo maskaxda aadanaha iyada oo aanan dhaawac la gaarsiinin neerfaha qofka waxaana hawsha qabanaya robotyo sida harqaanka oo kale ah oo iyaga ayaa qaybta dambe ee madaxa qofka ee loo yaqaan qadaadka jeexayo deedna halkaas ay dhigayaan jibiska si arrinka la yaab kale ayaa ah inay danab gudbiyaashu yihiin xarig la'aan oo ay u shaqeynayaan sida bluetoothka oo kale oo arrinku ma aha in qofka madaxiisa fiilooyin laga taagtaagayo sida aan ognahay waxaan maqalno dareenno
garanno iyo wixii aan ku fikirnaba waxay ka dhashaan dhaqdhaqaaqyada ka dhaca neerfayaasheenna. Kooxdanna waxay ka shaqaynaysaa inay si qoto dheer u fahmaan neerfayaasheenna, deedna ay horumariyaan. Ka aadan ahaan waynu horumarsannahay oo haddii qodax ama dab aynu ku joogsanno, ilbiriqsiyo gudahood ayaa lugtii la boodnaa, iyadoo lugtii fariintii laga diray ay gaarayso maskaxdeena. Deedna maskaxdeena ayaa sheegaysa wixii aan ku joogsannay inay ahaayeen dab ama qodax. Durbadiina maskaxdeena qaybta qaabilsan dhaqdhaqaaqa jirka ayaa loo dirayaa amar ah in kor loo qaado lugta, sidaa ayaana lugtii kor ugu qaadaynaa wax ka yar ilbiriqsiyo. Haddaba Elon Musk iyo kooxdiisu waxay rabaan inay ka faa'iidaystaan horumarkan, oo isaga oo ka hadlaya telepathy waxa uu bartiisa X ku qoray. Telepathy waxay awood ku siinaysaa inaad maamusho kombiyuutarkaaga ama moobilkaaga adiga oo niyeysanaya oo keliya, oo kolka ay maskaxdaada soo dirto amar ah inaad kombiyuutar wax ku qorto ama YouTube aad ka daawato, intii aan fariinta loo gudbin gacantii shaqada qaban lahayd, waxay fariintii gaaraysaa jibiska yar ee qadaadka dambe kaaga talaalan. Isla markiina kombiyuutarkaagii ama taleefankaagii haddii uu ku xiriirsan yahay jibiskaasi ayaad ka maamulaysaa, deedna wixii aad niyeysataba halkaas ayaad ka daaranaysaa adiga oo aanan isticmaalin gacmahaaga. Kooxdani waxay ku dhawaaqday in isticmaalayaasha ugu horeeya ay yihiin dadka naafada ah ee lugaha iyo gacmaha la. Bal suurayso Stephen Hawking haddii uu isticmaali lahaa jibkan yar, si ka dhaqsi badan sidii hore ayuu u hadli kari lahaa isaga oo aanan isticmaalin kombiyuutar cod ka soo saaro. Haddii uu mashruucan si dhaba u guulaysto, waxaa la gaari doonaa in la akhriyo niyadda qofka waxa ku jiro, oo qofka aad xiriirka la leedahay waxaad ogaan doontaa inuu si dhaba kuu jecel yahay iyo inuu kugu danaysanayo. Sidoo kale waxaa macquul inaad si fudud u ogaato haddii uu saaxiibkaa qalbiga ka jecel yahay inuu kula guursado, si adiga uu kuugu sheekeeyo inuu keligaa nolosha kula wadaagi doono. Hase ahaatee, kolkaa waxaa qasaba inaad labadiina aad isticmaalaysaan jibiskan yar ama haakin aad u adeegsato maskaxda saaxiibka. Sidoo kale waxaa dhici doonta inuu qofka kiciyo neerfayaal maskaxeedkiisa, deedna uu dhagaysto buugaag cod ah ama heesta uu rabo, iyadoo aysan cidna maqlayn ama aynan dareemayn qofka xaaladda uu ku sugan yahay. Xitaa waxaa xal loo heli doonaa erayada qaar uu qofku yaqaano si uusan ogeyn sidii uu sharaxi lahaa. yacni mararka qaar waxaa dhacdo qofku in kolkii arrin la weydiiyo uu yaqaano arrintaasi jawaabteeda se uunan afkiisa soo qabanaynin, deedna uu yidhaahdo maskaxdeeda ayuu ku wareegsanayaa shaygaasi. haddaba jibkan xal ayuu u noqon doonaa dhibaatadaas. intaa waxaa sii dheer inuu Elon Musk rabo xalinta cabsida ay aadanuhu ka qabaan robodyada, iyadoona dadka laga dhigi doono haaf robodyo awood leh. sidoo kale kooxdani waxay wadaa mashruuc la yidhaahdo Vision Link oo ujeedkiisu yahay in dadka ku dhashay indho la'aanta loo sameeyo arag macmal ah. dhanka kale arrintan ay wadaan Elon Musk iyo kooxdiisa waxay leedahay khatarteeda, oo waxaynu ka tegaynaa hanaankii dabiicinimada inagoona qaadi doono wadda halisteeda leh, oo waxaa dhici doonto in hackersku ay jabsadaan qofka maskaxdiisa, deedna fikradaha ka guuxaya qofka ay ka gataan shirkadaha gaarka loo leeyahay. sidoo kale waxaa dhici kara in qofka maskaxdiisa lagu shubo feerisiyo ama laga dhigo qof waalan. hayaanka qarsoon ee kooxdani waa samaynta waxa loo yaqaano transhuman, oo ah in aadanaha loo isticmaalo tiknoolajiyad si loo siyaadiyo awooddiisa jireed iyo weliba midiisa maskaxeed. haddaba daawade, adigu ma jeclaan lahayd in maskaxdaada lagu talaalo jibiskan yar? fadlan faaladaada inoogu reeb qaybta commentiga. mahadsanid.